تبارك وتعالى dhagaxda laga dhisay buu nabigu sifeeyo wuxuu yiri labinatun min dhahabin wa labinatun min fidda labadan dhagax ee jannada la isdul dhigay laga dhisay midna dahab buu ka samaysan yahay buu nabigu yiri midna lacag buu ka samaysan yahay ahlul jannah jannada dhexdeeda buu nabigu yiri way cunayaan way cabayaan waqtigay cunayaan xad male waqtigay cabayaan xad male way cunayaan way cabayaan ma saxaroonayaan kaadi yeelan maayaan qandhuuf iyo siin iyo khaaqatan midna yeelan maayaan buu nabigu jannadaasa ilaahay inoogu baaqaya maalin walba oo lagu leeyahay salaada markaa tukanayso ee muadinku ku leeyahay hayya cala salaah hayya cala alfalaah jannada is horkeen sadaqad baa bixi laga leeyahay jannada is horkeen quraan baa lagu leeyahay kaale akhri jannada is horkeen aakhira wax u bixi baa lagu leeyahay jannada is horkeen markaa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam majliskiisa isagoo maalin fadhiya ayay nimankii muhaajiriintii Makka ka soo hijrooday ayaa sarakaco nabiga ay ku yiraahdeen nabi Allah magaalada Makka annagu aan ka imanay ka soo baxnay ma uu zamzam baan ku haysano iimaahayn halkan biyuhu waa in magaalada Madiina ceelashana niman yahuuda inta badan iska haysta lacagan ku iibsanana ma haysano marka ninkii ceelka bi'r ruuma laha ayuu nabigu u tago wuxuu ku yiri asxaabtayda muhaajiriinteeda biyaha u fasaxa ka cabaane markaasuu u fasaxi maayo oo anu ceelka yar baan leehayo biyaha yar baan iibiyayo reerkayga ayaa ku biiliya markaa buu nabigu ku yiri bi'nihi bi'ayn fil janna il jannada ku taala ceelkaaga ku bedelo ku iibso markaasuu yiri may ceelkayga yar iska iibin maayo iska kaydaa buu kay Uthman bin Affan radiyallahu anhu oo dhakiyaha oo aqli badna oo inshiisu meel dheer wax ka arkayay oo basiiro ilaahay uu siiyay ayaa hadalkii nabiga qalbigiisa ku dhibcay bi'nihi bi'ayn il jannada ku taala ceelka igaga iibso markaa buu ninkii iska diiday ninkii ceelka lahaa Uthman baa ninkii u tago yiri ceelkaaga hadii laga yiraahdo lacag ku iibi ma iibin lahayn hawaan iibin lahaa way gorgortameen markaa waxay ku heshiyeen 30,000 oo dirham Uthman lacagtii buu soo qaado uu dhigay ceelka furihiisa igu soo wareeji buu keenay uu ka soo qaatay rasuulkii calayhi salaatu wasalaam buu u keeno wuxuu ku yiri yaa rasuulallah ceelkii bi'r ruuma hadii aan keeno ishii jannada ku taalay ninka loo ballan qaado iska diiday aniga ma lay ballan qaadaya markaa buu nabigu yiri haa markaa buu ceelka furihiisii waa kan asxaabtaadana waa waqaf uu yahay hadaan sadaan buu ceelka hadda talbiisa waa waqaf hal isticmaalo rasuulallah markaa buu nabigu farxay indhaha ayuu nabigu markaa kor u qaado wuxuu yiri Usmaan ilaahu raalli baan ka noqday raalli ka noqo Usmaan maanta laga bilaabo amal dambe haduuna sameynba inta buu jannada ku galay rasuulku